دراسة شدعاء فقاك لا معنا وهيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم دمان داودياشا TV-ga Somali News waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka oo wajigiisa koowaad maanta inooga furmaya stuudiyaha dhexe ee TV-ga Somali News ee magaalada Muqdisho. tartankan oo ah tartan sanadlaha isla markaasina bisha Ramadaan aad ka daawataan TV-ga Somali News ayaa waxa uu sanadkan xambaarsan yahay xiise gooni ah iyadoo ay ku tartamayaan iskuulaadka gobolka Banaadir oo ilaa 32 iskuul nasiib u yeeshay inay tartanka ka qayb galaan. tartanka bisha barakeysan ee Ramadaanka ee tartan aqooneedka waxa maanta oo wajigiisa koowaad uu yahay in laga qayb galaya ama nasiib u yeeshay in ay noqdaan iskuulaadka ugu horeeya halkan cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ku tartamaan iskuulaadka kobciya iyo waliba Soomaaliya iskuulada dugsiga hoose dhexe sare ku yaala magaalada Muqdisho. barnaamijkan waxaa dhinaca taabagelinta abaalmarinada qaaliga ah guddoonsiinaya ama diyaar u ah kaalintoodana ay barnaamijka ka qayb qaadanaya Dahabshiil Group oo xubin kamid ah ay nagala joogaan halkan. sidoo kale dhinaca su'aalaadka tartanka waxay noo soo diyaariyay inta uu barnaamijka soconaya jaamacaddan iraahday Al-Cimro iyaguna qayb naga mid ah mas'uuliyiinta halkan ay nagula sugan yihiin. barnaamijkeena ayaan rabnaa inaan guda galno hase yeeshee waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo maamulaadka iskuulaadka aan ku horeeyo iskuulka ee Soomaali. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo maamulka iskuulka Cabdinuur Cali Maxamed si halkan kelmado uga yiraahdo sida ay u arkaan iyo ka qaybgalkooda barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay mahad iskale oo noo suura geliyay in halkaan isugu nimaano. waxaan sidoo kale jecelahay in halkaan uga mahad celiyo TV-ga caalamiga ee Somali News oo runtii isku howlay in uu qabto tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo maantay aan nasiib u yeelanay inaan ka mid noqono iskuulada lagu furaya. anigoo ah maamulaha dugsiga Soomaaliya waxaan jeclahay in halkaan maliyo iyo bogaadin iyo mahad celin intaba aan uga soo jeediyo TV-ga caalamiga ee Somali News iyo sidoo kale company-ga taabageliyay oo ah Dahabshiil Group oo runtii ayaguna sida warbixinta aan ku hayno barnaamijkan taabagelintiisa iyo abaalmarinada insha Allah tacaala bixin doona oo iskuulada kaalimaha gala siin doona. waxaa sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo kaalinta ayaduna ay ku leedahay jaamacadda Al-Cimro oo ayaduna runtii dhanka soo diyaarinta su'aalaha ayaduna qaybta weyn ku leh oo ah jaamacadda su'aal diyaarinta halkan ku leh. haddaan u laabto kan dugsi ahaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa tartankan qiimaha badan leh oo runtii ku soo aaday bishii barakeysneed ee Ramadaan oo bil cibaado ah. waxaan leenahay dugsiyada ka qayb galaya oo ka dugsi ahaan Soomaaliya anagoo aan maanta nasiib u yeelanay inaan furno in haddii Ilaahay insha Allah tacaala tartankaas uu noqon doono tartan lagu soo wada bandhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo aqoon uuna yahay midka labaad tartan isbarasho oo dugsiyada iyo ardaydu sidoo kale ay isku baran doonaan oo isdhexgalka qayb ka ah. insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo waa soo dhaweynaynaa waana ka mahad celinaynaa hadduu ahaan lahay TV-ga Somali News Dahabshiil Group iyo jaamacadda Al-Cimro kaalinta ay ku leeyihiin dhammaantiin waan ka mahad celinaynaa. waana idinka aqbalnay casuumadii iyo sida insha Allah tacaala fiicneedu wanaagsaneedu loo soo dhaweeyay. ajri xasan Ilaahay ka siiyo aad u mahadsantiin. sidoo kale waxaan rabaa inaan iyagana ku soo dhaweeyo maamulka iskuulka kobciya si halkan kelmad ay uga yiraahdaan kaga aadan dareenkooda ka qaybgalka barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka. Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaan rabaa markan inaan ku soo dhaweeyo kelmadiisa. bismillaahir rahmaanir rahiim. awalan ilaahay baa mahad iska leh noo suura geliyay arintan inaan isugu imaano meeshan aan maaragtay aan tartankan iyo meeshan quruxda badan aan isugu imaano. kadib waxaa mahad iska leh bacdallah telefishinka noo suura geliyay maanta inaan aqoonteena iyo waxbarashadeena aan halkan kusoo bandhigno iyo isbarashadan aadka u qiimaha badan Somali News. kadib waxaan mahad celinayaa Dahabshiil Group iyo jaamacadda Al-Cimro noo soo diyaariyay su'aalaha iyo taabagelinta uu iska leeyahay maaragtay telefishin Dahabshiil Group ay iska leeyihiin. haddaan soo laabto ka iskuul ahaanteena
aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ka qaybgalta maanta aan kasoo qayb galnay iyo casuumaadana loo sameeyey iyo soo dhaweyntana loo sameeyey inta meeshaan lagu soo dhaweeyey. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan intuu tartanku socdo aan si nidaam iyo maaragtay ku dheehan tahay xushmad uga qayb geli doono tartanka, kuna soo bandhigi doono insha allah ka kobciye ahaan aqoontii iyo wixii maaragtay nooga aadanay meeshaan insha allahu tacaala. hadalka ma dheereynayo, maamulihii iga horeeyey ayaa maaragtay soo gunaanaday. waxaan rabaa inaan idhaahdo mabruuk. waxaan u mahad celinayaa telefishinka, waxaan u mahad celinayaa dahabshiil group, jaamaca alcimra oo ayaduna maaragtay isku hawsha mar walbaba sidii ay maaragtay aqoonta iyo waxbarashada ay wado maaragtay kaalin weyn mugle uga ciyaari lahayd, una suurtagelisay iskuullada mar walbaba inay maaragtay aqoontooda ay soo bandhigaan. waxaan rajaynayaa in ilaahay maaragtay uu ka amaal mari doono maaragtay dadaalka ay wadaan, ayna noqon doonto insha allahu tacaala mid lagu mahadiyo insha allahu tacaala. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. si wada jir aad bay u mahadsan yihiin maamulayaasha iskuulaadka maanta tartanka aqooneedka bisha barakeysan ee nagala qayb galaya ee kobciya Soomaali. sidoo kale waxaan rabaa inaan iyaguna kusoo dhaweeyo kelmadna halkan ay ka yiraahdaan ugu horeyn aan kusoo dhaweeyo jaamacadda Al-Cimra oo dhinaca su'aalaadka ee barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka ay noo soo diyaariyay Cabdullaahi Cumar Aweys. bismillaahi raxmaani raxiim. Ramadaan kariim dhammaan ummadda islaamka, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo TV-ga Sam News iyo dhammaan tartamayaasha kasoo qayb galay tartankan tartan aqooneedka TV-ga Sam News. waxaan kaloo rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo daadiyaasha barnaamijka ugu horeyso walaasheen Xamdi Faarax Cusmaan iyo walaalkeen Xasan Kaahiye. annaga ka jaamacad Al-Cimra ahaan ujeedadeena waxay tahay tartanka waxaan uga qayb qaadanay dhanka su-aalaha. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo maamulka sare jaamacadda ugu horeeya xafiisyada waxbarashada jaamacadda oo mar walba u taagan in ardayda Soomaaliyeed ay u diyaariyaan su-aalo haddii aan leedahay su-aalo oo tartan aqooneed ay kaga qayb qaadan lahaayeen. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo 32 iskuul oo tartankan kasoo qayb galay inaan ugu mahad celiyaan rabaa. waxaa kaloo rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo tartamada iskuullada maanta lagu furayo tartanka ugu horeeya iskuullada Soomaali iyo iskuulka Kobciyo oo maamulkooda halkan ka hadlay. jaamacadda Al-Cimra maxay ugu talagashay tartankan? jaamacadda Al-Cimra waxay ugu talagashay tartankan 32 iskuul oo tartanka kasoo qayb galay waxay leeyihiin tixgelin gaar ah haddii aan leedahay kulliyadaadka jaamacadda ay bixiso iyo waxbarashadooda. ardayda tartanka kasoo qayb galay ama ardayda sanadkan dhameyn doonta haddii ilaahay yiraahdo jaamacadda waxay sii doontaa tixgelin gaar ah. sidoo kale waxaa kaloo tixgelin kala sii laha dadka guuleystay naftirkooda jaamacadda waxay sii doontaa tixgelin annagoo la kaashanayna TV-ga Sam News ka qaadan doono listiyada oo iskuulaadka kasoo qayb galay. mar raba in hadalka idinku badiyo. mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waatay aad buu mahadsan yahay maamulka jaamacadda Al-Cimra Cabdullaahi Cumar Aweys. markana sidoo kale dahabshiil group ayaa rabaa inaan iyaguna kelmadooda siiyo oo inagala joogo Cali Ismaan Ibraahim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan bahda inay la soo qayb gashay furitaanka tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo ay iska kaashanayaan sanadkan 2020 TV-ga Sam News, shirkadda dahabshiil group qaybaheeda kala duwan, jaamacadda Al-Cimra oo su'aalaha inoo diyaarisay insha allahu tacaala inta tartanku uu soconayo. waxaan bogaadin gaara u jeedinayaa 32 iskuul ee tartanka kasoo qayb galay ee dacwada soo ajiibay. xaqiiqdii inaga ka dahabshiil group ahaan sanadkan deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku dhawaad 22 tartan ayaan taabagelinay. tartanka iskuulada haddii la yiraahdo waa tartanka kaliya aan taabagelinay, tartanka ay iska kaashanayaan dahabshiil group iyo TV-ga Sam News. xaqiiqdii waa dareemi kartaan marka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo deegaano aad u ballaaran ah, warbaahinta intaa la eg ee ka howlgasha ee isugu jirta muuqaal baahiyayaal iyo idaacado inaan ka doorbidnay tartanka dugsiyada oo aan isleenahay waa unuga ugu muhiimsan ee tartan la taabageliyo. tartanka dugsiyada ay isla qabanayaan sanadkan walaalaha Sam News TV iyo shirkadda dahabshiil group. intaa markaan uga gudbo xaqiiqdii waxaan bogaadinayaa 32 iskuul ee dacwadeena soo ajiibay isla mar ahaantaana diyaar waa sanada inay soo bandhigaan aqoontooda isla mar ahaantaana ay baratamaan. marka la tartamo cid un baa guuleysanaysa insha allahu tacaala.
abaalmarino qaali ayaynu ku bixin doonaa sanadkan 3 kaalmood kaalinta koobaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad insha allahu tacaala waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa tv-ga Sum News oo dadaal fara badan ku bixiyay inuu qabsoomo tartankan xaqiiqda inaga gadaal ayaan ka taagneen oo waa barnaamijka abaabulkiisa iyo inta badan iyaga ayaan u daynay waan uga mahadcelinayaa kaalintoodii si diiran ayay uga soo dhalaaleen insha allahu tacaala maadaama hadda fulintii aanu gudagalnayna waxaan ka rajaynaynaa in hawshii ay labalaabaan insha allahu tacaala inta ka harsan ramadaankana insha allah maalin walba shaashada muuqaalbaahiyaha Somali News aan ka aragno tartan xiisa badan iskuulo si faran kale u tartamaya qoladii guuleysatana ay markaa mahadsan tahay qolada kalena laftooda aan u mahadcelino waa libinta unbaa ka helisay insha allah mar kale ay guuleysan doonaan si faran kale ay isdhexgalka bulshadana aan uga shaqeyno insha allahu tacaala aan iska kaashano sidoo kale insha allahu tacaala tartamada sanadan aan taabagelinayno oo deegaanada koonfurta bartamaha Soomaaliya aan tilmaanay all bulshada waan la wadaagi doonaa insha allahu tacaala markaad ka aragtaan shaashada muuqaalbaahiyaha Som News sidoo kale waxaan idinku la wadaagi doonaa barteena Facebook natiijo walba oo barnaamijka ka soo baxa si bulshada cadada ugu faraha badan aan u gaarsiino tartankan miisaanka uu leeyahay iyo mugga markaa saameyntiisa ay la eg tahay saameynta togan insha allah bulshada meel walba ay joogaan waan la wadaagi doonaa 5 qaaradoodna in laga wada daawan doono waan filayaa sidoo kale waxaan mahad gaar u jeedinayaa walaashay حمدي فرح عثمان يولالك حسن كاهيو برامج كدادهينيا waxaan leenahay waad mahadsantihiin insha Allah dadaalkiina waan aragnaa videoga ugu horeeyay barnaamijda aad soo bandhigteen oo tartanka dugsiyada ay ku tartamayaan iyo hawlaha socdo insha Allah aan aragno dardartiina iyo sidaad hawsha u wadaan inagu mar walba sidaan hore uga dhawaajinay iskaashi buuxa ayaan la leenahay TV-gan horena waan ula soo shaqeynaynaa haddana insha Allah tacaala iskaashigii inaan sii laba laabna ayaan diyaar u nahay hawsha aad qabataan iyo sida aad markaa noola shaqeysanaya wax walba ku xirnaan doonaan laakiin hadda inta aan aragno waan ku qanacsanahay inaad halkiina ka sii wadaan oo aad ka laba laabtaan ayaan rajaynaynaa ugu dambeyntii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Al-Cimra oo barnaamijkan markaa iyana kaalin nug leh ku leh su'aalaha inoo soo diyaarinaysa insha Allah way mahadsan yihiin aan leenahay maamulka iskuulada halkan ka hadlay ee iyana dareenkooda cabiray maanta aan ku bilaabnay kubciga Soomaaliya waxaan leenahay waa mahadsantihiin insha Allah tacaala anagu waa idin barbar taaganahay tartanka halkiisa laga sii wado halganka iyo aqoonta un baa lagu guuleystaa bulsho walbana heerka tacliinteeda ay leegtahay ayay ku horumartaa insha Allah tacaala aqoonta marka aan dhiirigelino aan dardargelino insha Allah tacaala maraba inaan hadalkayga idinku sii dheereeyo maanta waa maalintii koobaad insha Allah tacaala maalinta gunaanadkana sida aynu maanta isku aragnaa iyo isku arki doonaa insha Allah tacaala saddexda iskuul ay noo soo baxday iyo dhammaan iskuulada nagala qayb gashayna tixgelin gaar ah ay noo yeelan doonaan insha Allah tacaala oo markaan abaal marinayno iyo markaan u baahano fursado kale aan uga faa'iideyno iskuuladii ka qayb galay sanadkan tartanka dacwada soo ajiibay il gaar ayaynu ku eegi doonaa inagoo liiska ka qaadan doonaa bahda Som News oo inoo taabagelinaysa barnaamijka oo fulinta iskale insha Allah tacaala ama inoo diiwaan gelisay tiimka إن شاء الله أنت أيام كسوكوبيا كلمة دي رسمية وما سنتهين سيدا يسوع عزونتين إن شاء الله إن هالكين أكتسي ودان ورجينيا ترتن كان هاي نوفر إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام قيبا حضر الجيدين كهالكاسي عدي أنو كغدبنا وحاقصين مدن إسلام مركاسي عن ربعين هالكا نقوم هذا علينا لما تنبا تيبقى سومالي نيوز ستوديو دحين بقالة مقدشو اسكوهولو سيدي برنامج كان وسنة كان وهرقلي لها إسلام مركاسينا qaab qurux badan daawadayaasha halkan ay kaga bogan lahaayeen sidoo kale kama marna dhinaca farsamayaqaanada iyo kaamiramanada ku howlan barnaamijkan taabgelintiisa iyo waliba qurxintiisaba waxaan rabaa barnaamijkeena tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaanka inuu inoo furmo isla markaasina iskuulaadka Soomaaliya iyo sidoo kale taa kobciyo waxaan rabaa inay soo dirsadaan min hal arday si ay halkan nasiibkooda barnaamijka ugu qaataan ama qofka kaalinta ku dhahda lambarka 1 iyo 2 barnaamijka aan ku bilaabino dabcan iskuulka Soomaaliya ayaa waxa uu noqday ama nasiib u yeeshay in dhinaca su'aalaha aynu ku bilowno markan waa hagaag su'aasha ugu horeysa ee tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee Som News TV isla markaana ay maalgelinayso Dahabshiil Group waxaa nasiib u yeeshay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ardada u tartamaysa dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya su'aasha dhagaha u fura sheeg kumuu ahaa saxaabigii loo aqooni jiray turjubaanka quraanka kariimka mar kale aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya sheega saxaabigii loo aqooni jiray turjubaankii quraanka kariimka mar saddexaad su'aasha aan ku celiyo
dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Sheega saxaabigii loo aqooni jiray turjubaankii Qur'aanka Kariimka. Waxaan filayaa jawaabta inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha Allah. bismillaah anigoo magacaygu yahay Anfac Cabdi Guuleed una tartamaya dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya haddii aan isku dayo su'aal jawaabteeda waxaa waay Cabdullaahi ibn Cabbaas. Su'aashan oo ahayd su'aal tarbiya ah la weydiiyay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ah ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyay iskuulka Soomaaliya oo ahayd su-aashii koowaad ee tarbiya jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya 2 dhibcood. tartanka waxaa taabagelinaysa Dahabshiil Group. su'aal diyaarintu waa jaamacadda Al-Cimra International University. su-aasha labaad ee barnaamijkeena ahna su-aashii koowaad ee la weydiiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waa su'aal tarbiya. fadlan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye dareenkiina siiya ka jawaabidda su-aashan. sheega ninkii afhayeenka u ahaa asxaabtii u hijrootay daarul xabasha ama ardul xabasha. mar kale haddaan ku celiyo su-aasha, ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waxaad sheegtaan ninkii afhayeenka u ahaa saxaabadii u hijrootay ardul xabasha. mar saddexaad haddaan ku celiyo su-aasha, dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waxaad sheegtaan ninkii afhayeenka u ahaa saxaabadii u hijrootay ardul xabasha. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha Allah. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Farxaan Maxamed Maxamuud una tartamaya iskuulka Kobciye Primary and Secondary School. su-aashana la weydiiyay ahneed maadada tarbiyada jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqon doontaa insha Allah Jacfar bin Abi Taalib. su-aashii koowaad ee dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye ahaydna su-aashii labaad ee barnaamijkeena jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ama qalad guddiga. su-aashii koowaad ee dhinaca Kobciye la weydiiyo oo tarbiya ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo Kobciye 2 dhibcood ka qaata Dahabshiil Group iyo jaamacadda Al-Cimra International University. su-aashii saddexaad ee barnaamijkeena ahna su-aashii labaad ee la weydiiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya dhagaha fura.
waxaad sheegtaan dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu bilowday. mar kale haddaan ku celiyo, waxaad sheegtaan dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu bilowday. mar saddexaad haddaan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya, waxaad sheegtaan goortii uu bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. waxaan filayaa in aad ka jawaab celin doontaan su-aashaas. بسم الله مقعي وعبد السلام أبشر كان صعد اسكول كوصل حس رأي سوماليا سؤال شاشنا اللي ودي هذا كجواب علينا إن شاء الله تعالى وحين قنيسا كون سجال بقول صدن إيه سجالك سؤاشان وهايد سؤاشي سدحات ترتنكا عيدنا سؤاشي لبعض اللي ودي دوكسيجا وصل حس رأي سوماليا جوابتي أي كبحين هدي أي تايمت صح مقالة جديدة. su-aasha labaad ee la weydiiyay iskuulka Soomaaliya oo ahayd taariikh jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. iminkana dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye su-aashii afraad ama su-aashii labaad ee xaqa ay u leeyihiin. waxaad sheegtaan dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu dhammaaday ama soo idlaaday. mar kale haddaan ku celiyo, waxaad sheegtaan goortii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. mar saddexaad haddii aan ku celiyo dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye, waxaad sheegtaan goortii uu soo idlaaday dagaalkii labaad ee adduunka. waa su-aal taariikha, waxaan filayaa jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha allah. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا عبد الله صاد براد أنا ترتمي اسكولك هو صدح سريع كبعية. سؤالنا دو جاوبت وإحنا قرينا كون سجال بقول أفرتين شنتي. سؤالنا واحد سؤال تاريخ عيدنا سؤال شيء لبعض حق أوليين دوسيجا وصدح سريع كبعية. عيدنا سؤال شيء أفراد برنامج كنا جوابتي أي كبحين هدي أي تاي صح من غلط بديجا. su-aasha labaad ee la weydiiyay iskuulka kobciye oo ahayd taariikh jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. kobciye laba dhibcood. su-aasha xigta waa isla su-aal taariikh ah. waxaa la weydiinayaa dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. waxaad sheegtaan bisha iyo sanadkii la aasaasay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. isla markaana waxaad sheegtaan xaruntii iyo halkii ay ku taalay iyo weliba dalkii. mar kale su-aasha aan ku celiyo, waxaad sheegtaan taariikhdii, bishii, sanadkii la aasaasay
hay-adda lacagta adduunka ee IMF. weli waxaad sii raacisaan magaalada iyo dalkii ay ku taalay. mar saddexaad su-aasha haddaan ku celiyo waa su-aal taariikha dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. waxaad sheegtaan taariikhdii bishii sanadkii la aasaasay hay-adda lacagta adduunka ee IMF, magaaladii ay ku tilay iyo dalkii. waxaan filayaa jawaabtaas inaad garan doontaan oo aad ka jawaabi doontaan insha Allah. bismillah aniga oo ah magacayga Najma Cabdi Xuseen oo tartamaya dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. su-aasha jawaabteeda haddii aan ka warcelino insha Allah waxay noqonaysaa 21 November 1945 xarunteeda waxay ahayd Washington ee dalka Mareykanka. su-aashan oo ahayd su-aal taariikha oo la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya, jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ama qalad guddiga. su-aasha saddexaad ee dhinaca iskuulka Soomaaliya la weydiiyo oo ahayd taariikh, jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddii ay ka faa'iideysanayaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye ka faa'iideysugana waqti ma lahan. bismillaah magacaygu waa Cabdullaahi Saad Beereed kuna socota dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye. su-aasha jawaabta isku day waa 10 Juun 1945 Washington Mareykanka. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya soonaha reer martay iminka si ka faa'iideysiga oo hortaala dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye, jawaabtii ay ka bixiyeen iyana haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysiga ee usoo wareegtay iskuulka Kobciye, jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. waa hagaag haddaba jawaabta saxda iyo guddiga. su-aasha ugu horeyn la weydiiyey ee ahayd su-aashii saddexaad ee iskuulka Soomaaliya ahayd sheeg taariikhda bisha iyo sanadka la aasaasay hay-adda lacagta adduunka ee IMF, isla markaana sheeg xaruntii iyo weliba halkii ay ku taalay magaalada iyo dalka, oo ay ka jawaabi waayeen iskuulka Soomaali. ka faa'iideysan ugu gudubtay iskuulka Kobciye isla markaasina ay ka jawaabi waayeen. jawaabtoo sax waa 27 December sanadii 1945 magaaladuna waxay ahayd Washington dalka Mareykanka USA. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda in labada dhinacaad ay usoo dhaweeyeen, ay sheegeen sanadkii iyo dalkii iyo magaaladii, balse ay keeni waayeen ama ay garan waayeen keliya 27 December oo ahayd xilligii la aasaasay. aad baad u mahadsantihiin labada iskuulka. iminka waxaa su-aasha iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye, iyana waa su-aal taariikha oo midii hadda la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya aanan ka fogeyn. waxaad sheegtaan xilligii la dilay Anwar Saadaad waa madaxweynihii hore ee Masar ee geeriyooday, taariikhda, bisha iyo sanadka. dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye mar kale haddii aan ku celiyo su-aasha, waxaad sheegtaan xilligii la dilay madaxweynihii hore ee Masar Anwar Saadaad ama uu geeriyooday, taariikhda, bisha iyo sanadka. mar saddexaad haddii aan ku celiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waa marka ugu dambeysa su-aasha ku celinta. waxaad sheegtaan xilligii la dilay Maxamed Anwar Saadaad, taariikhda, bisha iyo sanadka. waxaan filayaa in jawaabteeda aad heli doontaan insha Allah.
bismillaah magacayga waa farxaan maxamed maxamuud una tartamaya iskuulka kobciya primary and secondary school su-aashaana la weydiiyay haddaan jawaabteeda isku dayno waxay noqon doontaa 27 November 1945 su-aashan oo ahayd su-aal taariikha la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha saddexaad ee la weydiiyey iskuulka kobciyo ahayd taariikh jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba iminka waxa ay si ka faa'iideysayaan su-aasha uga hortaalla dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ka faa'iideysiga waqti malaan Soomaaliya. bismillaah magacaygu waa cabdisalaam abshir kana socda iskuulka hoose dhexe sare ee Soomaaliya su-aasha jawaabteeda insha Allah tacaala haddaan ka faa'iideysano waxay noqonaysaa 28 December 1945. su-aashan oo ahayd su-aal taariikha la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye iminka si ka faa'iideysaan uga hortaalla dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysi ahaan lagu wareegtay iskuulka Soomaaliya oo ahayd taariikh jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. jawaabta saxda ayaa guddiga. su-aasha la weydiiyey iskuulka kobciye ay ka jawaabi waayeen isla markaasina ka faa'iideysi ahaan ay ugu wareegtay iskuulka Soomaaliya oo ahayd sheeg goorma ayaa la dilay Maxamed Anwar Saadaad taariikhda iyo sidoo kale bisha iyo sanadka. su-aashaasi way wada garan waayeen balse jawaabta saxda waa 6 Oktoobar sanadii 1981. waxaan filayaa labada iskuul iyo ka qaybgalayaasha daawadayaasha in meel ay ku xarran doonaan jawaabta su-aalaha taariikhdana ay ka taxadari doonaan tartanka xiga. iminkana su-aasha xigta waxaa iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. su-aashu waa su-aal biology ah. cudurrada soo socda keebaa sababa virus? cudurrada soo socda keebaa virus uu sababaa? mar kale haddaan ku celiyo cudurrada soo socda keebaa virus uu sababaa? B hargab ama iraade A hargab, B waraabow, C shuban, D tiifow. mar kale aan ku celiyo cudurrada soo socda keebaa virus uu sababaa? waa marka ugu dambeysa A hargab, B waraabow ama isfiilato, C shuban, D tiifow. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad garan doontaan oo aad ka jawaabi doontaan. bismillaah aniga waa magacayga Najma Cabdi Xuseen oo tartamaya dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. su-aasha jawaabteeda insha Allah waxay noqonaysaa waxa sababa hargab ama xarafka A. su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha afraad ee la weydiiyey iskuulka Soomaaliya oo ahayd biology jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. 2 dhibcood dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ka qaata Dahabshiil Group iyo jaamacadda Al-Cimra International University. su-aasha xigta waxaa iskale dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye. waa su-aal biology ah. cudurrada soo socda keebaa bacteria ay sababtaa? A
tifo. B hargab. C cancer. D AIDS. mar kale aan ku celiyo cudurrada soo socda keebay bacteria sababtaa tifo, hargab, cancer, AIDS. mar saddexaad haddii aan ku celiyo su-aasha cudurrada soo socda keebaa bacteria ay sababtaa tifo, hargab, cancer, AIDS. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha allah. bismillaah anigoo ah cabdirasaaq ibraahim macalin cali oo ka tirsan iskoolka kobciye primary and secondary school. su-aashana la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo waxaa waaye carabka e oo ah tifo. su-aashan oo ahayd su-aal biology ah la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha afraad ee la weydiiyey iskuulka kobciye oo ahayd biology jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo kobciye 2 dhibcood. waxaan filayaa waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijkeena. barnaamijka waxaa taabagelinaysa dahabshiil group. waxaa dhanka su-aala diyaarinta qeyb lixaad le ka qaadanaysa jaamacadda alcimra international university. inta aan bareeg kooban aanan gelin halka dugsiyada soomaaliya iyo kobciye ay kala marayaan iyo natiijada sida ay tahay guddiga aan ka codsado. su-aalaha haddii aan ku hormaro dhinaca soomaaliya oo la weydiiyey 4 su-aal waxa ay ka jawaabeen 3 su-aal halna waa ay qaldeen. sidoo kale waxaa usoo wareegtay su-aal ka faa-iideysi oo dhinaca kobciye ugu imaatay waa ay ka faa-iideyso waayeen. sidoo kale su-aalaha kale ee la weydiiyey iskuulka kobciye iyaduna waa 4 su-aal waxay ka jawaabeen 3 su-aal halna waa ay ka jawaabi waayeen. sidoo kale su-aalka faa-iideysi ayaa waxay uga timid dhigooda iskuulka soomaaliya balse waa ay ka faa-iideysan waayeen. aad bay umahadsan tahay xamdi faarax cismaan oo qayb ka ahayd guddiga tartanka bisha barakeysan ee ramadaan dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo ay ku tartamayaan 32 iskuul oo qaybka iskuulaadka ku yaala gobolka banaadir. taabagelintu waa dahabshiil group. dhanka su-aala diyaarinta waa jaamacadda alcimra international university. aan sii gudagalno tartankeena qaybihii kale ee inooga haray. waxayna tahay labada iskuul faanole faray kama qodna inay tahay oo barbaro ay yihiin halaal su-aal ay soo hareen martay wax ka faa-iideysi aan la helin. labada iskuulna iminka ay min 6 dhibcood ay haystaan. su-aashu waxaa iskale dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya. waa su-aal chemistry ah. waxaad sheegtaan sumadda curyaha calcium. mar kale haddaan ku celiyo waxaad sheegtaan sumadda curyaha calcium. waxaad sheegtaan sumadda curyaha calcium. waxaan filayaa jawaabteeda inaad heli doontaan oo aad ka jawaabi doontaan.
bismillaah magacaygu waa cabdisalaam abshir kana socda iskuulka hoose dhexe sare ee soomaaliya su-aasha jawaabteeda insha allahu tacaala waxay noqonaysaa curyaha calcium sumadiis waxay noqonaysaa c a su-aashan oo ahayd su-aal chemistry la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha shanaad ee la weydiiyey iskuulka soomaaliya oo ahayd chemistry jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya 2 dhibcood ka qaata jaamacadda alcimra. su-aasha xigta waa su-aal chemistry ah waxaa la dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye dhagaha fura waxaad sheegtaan sumadda curiyaha sodium. mar kale aan ku celiyo waxaad sheegtaan sumadda curiyaha sodium. mar kale su-aasha haddaan ku celiyo waxaad sheegtaan sumadda curiyaha sodium. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha allah. bismillaah anoo magacaygu yahay dayax maxamuud axmed una tartamaya iskoolka kobciye primary and secondary school su-aashan la weydiiyey insha allah hadda isku dayna waxay noqon doontaa n a su-aashan oo ahayd su-aal chemistry la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen sax ama qalad guddiga su-aashaas shanaad ee la weydiiyey iskuulka kobciye oo ahayd chemistry jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. kobciye 2 dhibcood. su-aasha xigta waa su-aal ka duwan su-aalihii hore waa su-aal suugaana yaa tiriyey gabayga allay dumay yaa tiriyey gabayga allay dumay. mar kale haddaan ku celiyo yaa tiriyey gabayga allay dumay waxaan filayaa jawaabtaas inaad heli doontaan insha allah. bismillaah aniga u tartamaya dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya su-aal jawaabteeda isku dayna insha allah waxay noqonaysaa waxaa tiriyey cali cilmi afyare. su-aashan oo ahayd su-aal suugaan la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha lixaad ee la weydiiyey iskuulka soomaaliya oo ahayd suugaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. iminka si ka faa'iidaysaan waxay u hareertaallaa dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabta waqti ma lahan. bismillaah magacaygu waa farxaan maxamed maxamuud una tartamaya iskuulka kobciye primary and secondary school su-aashan la weydiiyey ahayd oo soo hareer madsaaxiibadan oo ahayd maadada soomaali jawaabteeda isku day waxay noqon doontaa cabdulqaadir xirsi yamyam. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee soomaaliya soo hareer martay iminka si ka faa'iidaysaan u hortaalla dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga
su-aasha ka faa'iidaysi ahaan usoo gaartay iskuulka kobciyo ahayd sugaan waa mid qalada. haddaba guddiga jawaabta saxda ah. su-aashii lixaad ee la weydiiyey iskuulka Soomaaliya ay ka jawaabi waayeen balse ka faa'iidaysi ahaan uga gudubtay dhigooda iskuulka kobciyo ahayd sugaan isla markaana u dhigneed sida tan yaa tiriyay gabayga allay dumay waa jawaabta saxda waxay noqonaysaa abwaanka tiriye abwaan raaga ugaas. waxaan filayaa jawaabtaas in meel ay ku xariran doonaan labada iskuulka su-aasha iminka iskale waa kobciye dhagaha fura. waxaad sheegtaan abwaankii curiyey allahayow nin ii daran gabayga allahayow nin ii daran. mar kale haddaan ku celiyo iskuulka hoose dhexe sare kobciye waxaad sheegtaan abwaanka curiyey gabayga allahayow nin ii daran. waxaan filayaa jawaabta inaad haleeli doontaan kobciye insha allah. bismillaah magacaygu waa farxaan maxamed maxamuud oona tartamaya iskuulka kobciye primary and secondary school su-aashana la weydiiyey haddaan jawaabteeda isku dayno waxay noqon doontaa cabdulqaadir xirsi yamyam. su-aashan oo ahayd su-aal suugaana la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga. su-aasha lixaad ee la weydiiyey iskuulka kobciye isla markaasina ahayd sugaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. iminka si ka faa'iidaysaan su-aashu waxay u hortaallaa ka jawaabideeda dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. jawaabtu ka faa'iidaysiga ah waqti malax. bismillaah aniga u tartamaya dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya su-aasha jawaabta insha Allah waxay noqonaysaa ugaas nuur ugaas roble. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye soo hareer martay iminka si ka faa'iidaysaan u hortaalla dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad waxa ay tahay guddiga. su-aasha ka faa'iidaysi ahaan u timid iskuulka Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya hal dhibic. su-aashu waxay ahayd su-aal ka faa'iidaysi ah. waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena su-aalaha iminka waa su-aale xisaaba waxaa iskale dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya dhagaha fura Soomaaliya. tirada aan qabsaday waxaan u geeyey 4 tirada aan qabsaday waxaan u geeyey 4 wadartu waa 9 tirada aan qabsaday waa imisa. su-aasha aan ku celiyo tirada aan qabsaday ayaa waxaan u geeyey 4 wadartu waxa ay noqotay 9 tirada aan qabsaday waa imisa. waxaan filayaa su-aasha jawaabteeda inaad haleeli doontaan mar saddexaad aan ku celiyo tirada aan qabsaday waxaan u geeyey 4 wadartu waxa ay noqotay 9 tirada aan qabsaday waa imisa. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha Allah.
anigoo magacaygu yahay anfac cabdi guuleed una tartamaya iskuulka hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya su-aasha jawaabteeda isku day waa 5 su-aashan oo ahayd su-aal xisaab ah la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ama qalad guddiga su-aasha toddobaad ee la weydiiyey iskuulka Soomaaliya oo ahayd xisaab jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. su-aashan waa su-aal xisaaba waxaan qabsaday tiro tirada aan qabsaday waxa aan ka jaray tiro farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waxa aan ka jaray tiro kale farqiga waa 20 waa imisa tirada aan qabsaday ayaa waxa aan ka jaray 6 farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waa imisa mar saddexaad aan ku celiyo tirada aan qabsaday ayaa waxa aan ka jaray 6 farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waa imisa magacaygu waa farxaan maxamed maxamuud oo la tartamay iskuulka kobciye primary and secondary school su-aasha jawaabteeda isku day insha Allah waxay noqon doontaa 26 su-aashan oo ahayd su-aal xisaabaha la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad guddiga su-aasha toddobaad ee la weydiiyey iskuulka kobciye oo ahayd xisaab jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye su-aashii xisaabta ahayd ee ay ka jawaabeen 2 dhibcood labada iskuul waxaa la weydiiyey min 7 su-aal oo ahayd su-aalihii xaqa ay u lahaayeen haddaba guddiga iyo natiijada tartanka sida uu yahay qeybaha dambe ee tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay dabcan waxaad wada sugtaanba dhammaan tartamayaasha iyo daawadayaashuba waa dhibcaha iyo su-aalaha sida saxda looga kala jawaabay 7 su-aal ayaa la weydiiyey labada iskuulba iskuulka Soomaaliya haddii aan ku hormaro su-aalaha la weydiiyey waa 7 waxay ka jawaabeen 5 su-aal labana waa ay ka jawaabi waayeen sidoo kale waxaa u timid 2 ka faa'iideysa hal ayay ka faa'iideysteen marka waxay noqonaysaa su-aalaha ay ka jawaabeen oo 5 dhibco ay ku heleen waa 10 ka faa'iideysiga marka lagu daro waxay noqonaysaa 11 sidoo kale iskuulka kobciye waxaa iyagana la weydiiyey sidoo kale 7 su-aal waxay ka jawaabeen 5 su-aal 2 ka faa'iideysi ayaa dhigooda Soomaaliya uga timid way ka jawaabi waayeen marka dhibcaha rasmiga haystaan waa 10 dhibcood waa hagaag aad ayay u mahadsan yihiin guddiga tartanka oo ay qayb ka ahayd Xamdi Faarax Cismaan natiijadii labada iskuulna inoo dulmaraysay waxa ay ka dhigan tahay in dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya 1 dhibic ay ka guuleysteen dhigooda dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye iminkaan eegno dareenka labada dhinac ee tartanka ka qaybgalayay maadaama tartanka ujeedada ugu weyn ay ahayd isdhexgal bulsho iyo isbarasho iyo aqoon kororsi waxaan siinaynaa labada qaybood gaar ahaan waxaan ku hormaraynaa dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye oo muujiyay dadaal aad u wanaagsan intii uu tartanku socday bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantihiin 100% waxaan u mahad celinaynaa iskoolka nala tartamayay ee Soomaaliya waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay waxa waaye mar haddii la tartamayo waxa waaye guushu meel un bay raacaysaa
wayna naga raacday marka waa ku faraxsannahay horaha u socdeen waana mahadsantihiin. aad bay u mahadsan yihiin tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye wanaagga qiimaha iyo qadarinta iyo aqoontii ay muujiyeen iyo bisaylka ay u muujiyeen dhigooda dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya oo kula tartamayay tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo maanta wareegiisii ugu horeeyay aan daahfurnay. iminka aan siino ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. bismillah alxamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فمهندس كلا الله سبحانه وتعالى ساكن نوسف ذي إن أنا هل كان أسكوه ذا نمانو أنا كوا هل كان كسو بندقني رنتي ترتن آدي قروح بدن حدي أنا لابد لنعبة وحن هذا علينا يا وهل كان هذا علينا يا سكول كي نلا ترتمي ها كبعي رنتي دال أي صوب بندقين أنا كان دال أي صوب بندقني لكن Soomaalida waxay ku mahmahada gari laban kama wada qosliso marka maanta hadii waqtigu ku sii waayo biri insha Allah taala aad guuleysanaysa marka guushana waxa waaye marba waa ka helinaysa marna waa ku soo helinaysa marka waxaan dhihi lahaa dadaal ay soo bandhigteen hor aadinkana dadaalkiina hore sii wada ka bacdi aadni jimina ana kana dadaalkiina waan sii wadi doonaa waxaan halkan uga mahad celinayaa guddiga tartanka noo qabanayay iyo jaamacadda su'aalaha noo soo diyaarisay jaamacadda Al-Cimra iyo group dahabshiil group oo asina barnaamijkan taabagelinaya runtii aad ayaan uga mahad celinayaa waxay ka qayb qaateen qayb aan la soo koobi karin marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan halkan uga mahad celinayaa TV Som News oo halkan mar walba u taagan ardayda Soomaaliyeed inay hadafkooda iyo waxbarashadooda iyo qiimaha ay joogan inay mar walba soo bandhigaan runtii waa tartan ay ku dhaantaan dhihi karnaa waxbarasho iyo isdhaxgal hadafka ugu weyn ee meeshan loo imadan waxa waaye inaan waxbarashadiina soo bandhigno ardayda Soomaaliyeedna isku barato marka intaas ayaan kusoo koobayaa hadal badan hanimo buuxsha Soomaalida ku mahmaada marka waxaan leeyahay Somali News TV ama Som News TV iyo Al-Cimra iyo barnaamijka taabagelintiisa iska leedahay dahabshiil group dhammaan waa mahadsantiin waxaan kusoo gunaanadayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad bay u mahadsan yihiin labada iskuul ee ka qayb galaya tartanka waan kaga mahad celinaynaa aqoonta kartida iyo dadaalka ay muujiyeen inagoo u marinayna maamulada labada iskuul qiimaha badan ee tartanka qaybta ka ahaa waa maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye iyo maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya oo runtii muujiyay kaalin wax ku oodana ka qaatay qabsoomida tartankan aqoon dheeraad ahna labada dhinacba ay muujiyeen. gunaanudkii iyo Xamdi Faarax Ismaan. dabcan qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaan isla soo gaarnay waxaan u mahad celinaynaa iskuulaadka Soomaaliya iyo kobciyo dadaalkooda halkani ku muujiyay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa kaamirmaanada iyo farsamayaqaanada oo barnaamijka si qurux badan u qaabeynaya xasanka hayo daadiyaha barnaamijka ahaa sidoo kale waxaan rabaa oo isla markaasina xusuud midan tartamayaasha ama iskuulaadka maalinta Brita hadii Allah weyn u saamaxo halkan ku tartami doono waa iskuulka Rodatul Culuum iyo sidoo kale Sooyaal oo labaduba iskuulaha hoose dhexe sare ee ku yaala magaalada Muqdisho kana mid ah iskuulaadka tartamayaasha ee ka qayb galaya barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka. guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa tartanka xiga intaan ku kulmi doono waa bahdii Som News oo isku duuban oo idin leestaasi nabadgelyo Ramadaan Kariim. qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri bara afkaaga bilowinkaada bobsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri bata jaxa khada ra'sa shada'aga faqa kala ma'na wahaya